mudane madaxweyne sharaf gaar bay noo tahay haddaan nahay guddiyadii shaqaalaha heer qaran iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir in caawa aad halkaan nagu martiqaado oon ku soo booqanno qiimo gaaray noo leehdahay muddada halkaan joognay iyo hawshii aan u joognayna maanta ayay noo soo gabagabowday waxayna ahayd hawl runtii muhiimaddeeda leh oo guddiyadan in muddo ay ka shaqaynayeen oo ahayd sidii shaqaala tayo leh oo dalka adeega u baahan yahay bixin kara sidii lagu gaari lahaa marka bacdamaa waddanka duruufo gaara ay jireen shuruucdoodana ay yihiin kuwa waqtiyo kala duwan la ansixiyey waxaan dadaal ugu jirnay sidii shuruucdaas intii iswaafaqi kartana marka hore aan iswaafajinno intii u baahan in dib u eegis lagu sameeyana ayadoo madaxdii iyo ciddii kale qusaysayba aan u gudbinan ayadan aan ka shaqayno mudane madaxweyne runtii arrintaasi waxay noogu soo dhammaatay si guul ah mudane madaxweyne anagoo fursaddan qaaliga ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa in marka ugu horrayso kugu bogaadino kugu ammaanno sida guddiga shaqaalaha Jubbaland madax bannaanida loo siiyey oo marka ay howlahooda ay gudanayaan ay maanta ay ka duwan yihiin aan dhihi karno maamulka kaliya oo aan isleenahay sidii guddi laga rabay waa u shaqeeya marka waa ku amaanan tahay waana kaaga mahadcelinaynaa shaqaalaha iyo habraaca iyo nidaamka ay ku shaqeeyaan runtii waddanka intiisa kale waa laga warhayaa cid walba oo guddi ah shaqada haysa iyo caqabadaha haysta marka arrintaasi waa arrin inaad kala saarto hawlihii farsamo oo dhaqangelineed iyo madax bannaanida iyo siyaasaddii iyo arrimihii shaqaalaha lahayn inaad kala saarto aad baad kaaga mahadcelinaynaa runtii waanu ku bogaadinaynaa maamulada kalena inay ku daydaan ayaan aad u codsanaynaa arrintaas bismillaahi raxmaani raxiim horta waan uga mahadcelinayaa guddoomiyaha iyo aasaaska markii laga hadli jiray Civil Service Commission-ka duq isagaa noo ahaa oo inta badan barnaamijka ama tala bixintiisa ama aasaaskiisa qaybo ka ahaa iyo dhammaan inta kale ee shaqaalaha ama ha noqdeen guddoomiyaasha ama ha noqdeen xubnaha kale guddiyada ka kooban ama ha noqdeen agaasimayaasha iyo technical dadkeeda ka caawinaya macna gooni ee noogu fadhidaa Civil Service Commission ama commissionkan shaqaalaha rayidka ah maanta waxaa culays badan inaga haystaa shaqo la'aan baahsan siyaasadda dowladdeennuna ayna ku filayn inay xisaabtanto waddankan dhallinyaradii waa la helayaa way buuxdaa shaqaalihii baa buuxa sidanaa jirta bal waxa bannaanka laga keeni intii loo kaadiyo inaan horta ka fakarno in dadkii wax ku bartay waddanka ee soo halgamay ee intaa weli u soo adkaystay u dhabar adeegay intaa taagnaa in shaqo loo raadiyo waxaa caqabadaha kale ka mid ahoo hadda na haysta adfaysarre iyo maxaykan iyo 22 taytal oo laga yaabo hal qof inta uu qaatay inay 10 qof oo shaqaale ah ay reer ay dabka u shida lahayd in lagu soo sameeyo bannaanka intii lagala yimaado at least xataa dawlad waliba markay adfaysarre bixinayso waxay jeceshahay inay siiso kuwa baasaboorka jinsiyadooda ama waddankooda haysta inay iyaga uga dhigto inay ku naasnuujiso oo lagu tiirsado sidaa la yeelo waa waddan weli waxaan ku jiraa la xisaabsanayo oo fara badan ku dhex jiraan oo madax bannaanidiisu ayna jirin oo danta iyo duruuftu ay keenaysa in wax badani uu ka halaabo taasaa inugu kalifaysa waan ka bixi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo laakiin waxaan u baahanay adkaysi iyo inaan inagu adkaysanno garanno cid kastoo maanta ina caawinaysa cid kastoonu gacanta u horsanayno berri waynu ka bixi doonaa seen u gaadhaynaa waa su'aal kale shaqaalaha rayidka waxaan ku boorinayaa hal inay ogaadaan horta bal inay komishanadu yihiin cidda shaqaalaha rayidka mas-uulka ka ah waxyaalaha hadda qaska ugu badan ka jira waxaa ka mid a qofkii inuuna isogeynba shaqaale rayida inuu yahay oo wasaaraddan uu la shaqaynaya cid aan ahayn oo kale intay xukunto dhibaatada iyo cilada ka timaada inuu go'aanka gaarista commissionku yeelanayo wasaaradda cabashada ay soo gudbiso wasiirku uu ilaan xuquuq baa isku xidhan oo isku sii aadan oo yidhahdo war ciladaas iga haysata shaqaalihii noocaas ahaa
oo ay noqoto markaa in shaqaaluhu horta ay ogaadaan inay rayid yihiin kow siyaasadda xuquuq iyagu ay leeyihiin ay helaan khaladaadka iyagu ay samaynayaan laga qabto shaqaalahan markaa rayidka commissionku wuxuu xaq u leeyahay inuu ilaaliyo xuquuqdooda oo laba la ilaalinaya iyagu inayna siyaasad ku milminay ogaadaan shaqaalaha rayid inay yihiin shaqaalaha rayidkii oo siyaasadda ay dhinac uga taagnaadaan laba siyaasiyiintu inayna u isticmaalin iyagu marba sida ay doonayaan shaqaalaha xuquuqdooda inay ilaaliyaan waxaa iskale komishanada halkan fadhiya iyagaa iskale haddaad ka filaan weydo inaad shaqaalahan mas-uuliyaddooda ilaaliso xuquuqdooda ilaaliso dee sababaad hadda commission usii sheegataan malaha waa laydinka rabaa marka inaad ilaalisaan shaqaalaha rayidka ah xuquuqda ay leeyihiin inaad ka ilaalisaan intay siyaasad ku milmaan waxaan shaqadooda ahayn inay galaan waa laba mid iyagaa tooda la ilaalinaya midna waxaan tooda ahayn baa laga ilaalinaya soo labadaas ma waa in labada qof waa inuu haddaan shaqaalaha la wacyigelinin oo wax loo sheegin oo aan marka dambe dee khaanad kale gelaya marka waxay la tahay taasina muhiim bay loo tahay hadal badan animaana ku talagelin laakiin waxaa iigu muhiimsani shaqaalaha rayidkii maanta baahida aanu qabno dowladda iyaga kowka labadaa qodobna ka maarmi maysaan xuquuqdooda la ilaaliyo iyo khaladaadkoo laga celiyo inaad ku waxaysaan iyo inaan siyaasiyiintu u isticmaalin shaqaalaha marba sida iyagu ay doonayeen